Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Dhammaan tiimkayga meel kastoo dunida aad ka joogtaan waan idin salaamayaa. Waa anigoo Cashar Marka Xuseen Cusmaan. Waxaan isla qaadanaynaa cashirka aan ku qaadan jirnay online-ka. Marka hore waxaan ku bilaabayaa magaca Eebe ee naxariista midda guud iyo midda gaar ahaaneedba. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan isla qaadanaynaa cashirkeena online-ka ahaa. Welcome to important points about their life. waxaad ku soo dhawaataan qodobo aad u muhiim ah kuna saabsan nolosha. You can't stop a time. waxaan ognahay nolosha inaanan anaga waqtiga joojin karin. Waqtigu ma celin karno mana joojin karno. wax kasta oo aad qaban lahayd waa beri iyo beri dambe. sidaana waxaa kaaga luma waqti badan oo aad wax ku qabsan lahayd. shaqooyinka aad dib u dhigatay way iswada gaaraan oo kadibna waxaad kugu cuslaataa fulinteeda. fikirka fiican haddii aad hayso waxaad tiraahdaa beri baan qaban doonaa. fursadda haddii ay soo baxdo waxaad tiraahdaa beri baan ka faa'iideysan doonaa. haddii aad caadooyin xunxun leedahay waxaad tiraahdaa beri baan ka tegi doonaa. wax kastaba waa beri iyo mustaqbal. Cumar Cabdilcasiis ayaa lagu yiri iska naso maanta. wuxuu ku jawaabay oo haddii aan maanta nasto goormaan shaqada maanta qaban doonaa. waxay ku yiraahdeen beri baad qaban doontaa. wuxuu yiri oo shaqadii maalin keliya ayaan dhammayn kari waayey. sidee baan shaqo 2 maalmood u dhammayn karaa? hanti heli maysid, horumarna gaari maysid ilaa shaqada maanta aad maanta dhammayso. mahmaah ay af Ingiriisiga iyo Carabiga wadaagaan ayaa tiraahdaa don't put till tomorrow what you can do today. shaqada aad maanta qaban karto beri dib ha u dhigin. haddii aad sidaa ku sifaysan tahay ogow inaad adigu faqriga dooratay. sidoo kale ta waxay tahay oo aadan celin karin da'daada. You can't stop your age. ma celin kartid da'daada ama ma maamuli kartid da'daada because shalay waxaad ahayd caruur aad u yar 4 ku socda gurguranaya. haddana tamar yar baad yeelatay, socod baad baratay. hadda orod baad baratay, qof xoog leh baad noqotay. haddana ugu dambeyn waxaad ku tegaysaa inaad bakoor ogsato oo 3 lug aad ku socoto. soo waqtigu waa midkaa sii soconaya maaha mid ku sugaya. okay, waxaa lagu leeyahay there is no problem without solution. ma jirto dhib aanan xal lahayn. macnuhu dhib kasta xal bay leedahay. dadka inta badan waxaa dilo waxay tahay dhib markay arkaan warwar. waxaad tahay mid warwar iyo walaac badan markii aad dhibaato aragto. marka ay dhib kula soo gudboonaato warwar baa ku dila adigoo aan marnaba ka fikirin xalinta dhibaatada. murugo iyo ciil baad ciidan moodaa. warwarku maskaxda wuxuu u diraa warwar. taasina waxay keentaa in maskaxdu aanay ka fikirin oo xal fiican keenin. okay, warwarku inta badan wuxuu sababaa inaad go'aano xunxun qaadato. haddii aad go'aan xun qaadatana waad guuldaraysanaysaa, horumarna ma gaari doontid. marka haddii aad tahay mid warwar iyo murugo had iyo jeer micinsada, adiga ayaa faqriga doortay. okay, there is no lock without key ayaa la yiraahdaa. ma jiro quful bila furo ah. macnuhu quful kasta furo buu leeyahay. albaab kasta furo lagu gala ayaa jira. wax aan ku shaqayn haddaad aragto furaheedii baadan gacanta ku hayn. wax walbana markaad furahooda gacanta ku hayso way ku shaqaynayaan ama way ku furmayaan. okay, you can't live a positive life with a negative mind. kuma noolaan kartid nolol wanaagsan adigoo negative yar xataa niyada kaaga jiro. waxaa la yidhahdaa negative attitude will never give you positive life. aragtida togan ama aragtida qaldan kuma siiso nolol wanaagsan. okay, sidoo kale dooradu waan aragnaa waxay ku bilaabataa asalkeeda ukun. xoolaha la dhaqdo waxa ugu yar waa dooradu miyay hal maalin ku dhalataa oo hal maalin lagu fiiqaa? waa maya. waxaa lagu leeyahay dooradu markii la fiiqayo ay ukunta tahay 21st days need to egg become a hen.
ukunta waxay u baahan tahay 21 biri inay ahaato inay huursanaato oo doorada baalkii ugu jirto sad aragteenba kadib ayay fiiqaysaa. So wax walba waqti ay leeyihiin, wax kastana waqti ay qaataan. sidoo kale hooyooyinka ubadka waxay caloosha ku sidaan 9 bilood. 9 months needed for baby get delivered. in 9 bilood caloosha lagu sido waa ubadka kadib ayuu dhashaa, ma jiro wax hal maalin gudaheed ku dhaca. Okay, if egg is breaking by outside force, life ends. haddii ukunta banaanka ka jabto noloshu way u dhamaatay oo ukuntaasi wax nacfiyo ma lahan. laakiin waxaa lagu leeyahay if breaking by inside force, haddii ay gudaha kasoo jabto life begins, markaasay ukuntuba nolosha u bilaabatay. Great things always begin from inside. wax kasta oo wanaagsan gudaha bay ka yimaadaan. haddii adiga gudahaaga wax wanaagsan ay ka yimaadaan, soo wax banaanka ama outcome-kaaga wuxuu noqonayaa wax wanaagsan. Okay, sidoo kaleeta everything you need will come to you at the perfect time. wax kastoo aad u baahan tahay way ku imaanayaan, weliba way ku imaanaysaa waqtiga ugu habboon ama waqtiga ugu fiican. waqtigeeda bay imaanaysaa, kama soo dibdhacaysaa, ka waliba. Okay, waxaa lagu leeyahay never give up. marnaba has dhibin. Great things take a time, be a patient. wax kasta oo wanaagsan waqti ayay qaataan. saad aragtayba maamada intaasoo bilood bay caloosha ubadka ku sidaa. sidoo kaleeta ukunta 21 biri ayay qaadataa. geela intaasoo bilood ayuu qaataa. Okay, ma jiro wax hal maalin marka roomana laguma dhisin habeen qura. Okay, noloshuna waa sida gamuunka iyo qaansada oo kaleeta. mararka qaar caqabad baa kula soo dirsi kara oo diris kula soo noqon kara. markii caqabadu diris kula soo noqoto ha noqon mid niyajaba oo isdhiga ama isdhiiba. An arrow can only be shouted by pulling it backward. gamuunkii qaansada saad aragtayba mar alaali mar kasta oo gadaal loo jeeda qaansada ama gamuunka waxaa kordhaya xawaaraha ama awoodda ay ku socon karto. So when a life is bringing you back with a difficulties, markay caqabadaha dib ku jiitaan, it means that it is going to launch you into something great. caqabad aad u weyn haddaad la kulanto wato fursadaaduna ay sii weynaan doonto. Okay, markaad rabtid inaad wax samayso waxaa lagu leeyahay first thing, horta marka koowaad ka fikir. The second, believe, aamin waxa aad qabanayso, aamin. The third, dream. qodobka saddexaad waa inaad leedahay hadaf ama yeelatahay yool. And finally, ugu dambeynti do it, samey waxaasi kadib waad ku guuleysanaysaa. Okay, thank you for your watching of this training. waad ku mahadsan tahay daawashada cashirkaani. We hope you like it. waxaan rajeynaynaa inaad ka heshay. aad ayaad u mahadsan tahay waqtiga quruxda badan aad inala wadaagtay. wixii aan qalday nafteedii shaydaan bay ka ahaatay. waxaan saxayn Allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadda iska leh oo waafajiyay